soo dhawaada saaxiibayaal soo dhawaada saaxiibayaal meel baad joogtaan waxaan rabaa inaan la baxo lacagtii insha Allah lacagtii waxay gaartay $10 soo jidaan waxaa la joogaa lacag la bixidii insha Allah soo hadda waxaa igu jirto $11 soo jidaan iyo 4 senti igu jirto waxaan rabaa inaan kala baxo insha Allah waa isla arki doonaa insha Allah lacagta la bixi doonaa biidhnillaahi kariim qaabka oo la bixi kartaan kula wadaagi doonaa insha Allah muuqaalka min bilow ilaa dhamaad dhameeso si aad u ogaato qaabka lacagta loo bixin lahaa insha Allah sidoo kale lacagtan waa yani haddii aan bixino Binance aan gelino sidoo kale EVC waan keeni karnaa haddii aan yani ugu talagalno okay marka muuqaalka ilaa dhameeso ilaa up to EVC hadaa u baahan tahayna waa kaa caawin doonaa insha Allah igala soo xiriir qaybta hoose commentiga insha Allah soo waa kaa marka hadda meesha u galnaa wajida waa kaa wadaan u soo galnay waxaa rabaa lacagta inaan la baxo $10 bixiyo $10 maxaa iga xigto inaan buuxiyo shuruudahan kow qaybtan u horeysa u jidaan qaybtan u horeysa qaybtan labaad inaan buuxiyo muhiim haddaan buuxin lacagteeda ma helaayo oo kasi ku buuxiya marka qaybtan taabana u horeyso qaybtan marka aan taabto qaybta u horeysa taaban doono waxa way qaybtan waaye qaybta basic taabanay basic u jida qaybtan hoose basic u jida basic taabo basic ma taabatay waxa gelinaysaa magacaaga iyo waxa gelinay soo hadda waxaan rabaa inaan magaca gelin insha Allah soo magaca gelin doona insha Allah magaca gelin doona insha Allah soo magaca gelin doona waa ka magaca gelin doona okay kadibna inta waxa gelin doona magaca okay soo waa ka magaca gelin doona soo qaybtan kale waxa gelin doona meel aan dooran doona kadibna waxa gelin doona dhalashada okay dhalashada adii waxa taqaana gasho waqtiya tahay gasho oo garatay soo gelin doona soo waa ka marka lambarka koowaad bisha koowaad soo waa ka okay kadibna waxaan dhihi doonaa adresskaaga geli adresskaaga soo waa ka waa geliyay kadibna waxaad dhihi doontaa soo okay soo laaban doonaa okay kadib confirm dheh kadib submit dheh ID ku weydiina ID soo meesha ID muhiim ah soo bixi doonaa soo qaybta ugu horeysa waan buuxiyay soo jidaan kadib waxaan sameyn doonaa kadib waxaan tagi doonaa qaybtan kale soo jidaan withdraw ku qoran tahay dooro kadibna ka dooro inta ka dooran ka hor yani waa inaad shuruudaha soo bixiso si korto horta modify dhigi doonaa modify kadib confirm soo hadda waxaan tagi doonaa qaybta hadda tagi doonaa markaan tago kadib inta taaban doonaa soo inta taaban doonaa ha okay waa ka hadda waxaan soo gelin doonaa meeshan adresska meesha soo gelin doonaa adresska raadino adresska Binance-ga adresska loo baahan yahay waa adresskii marka adresska loo baahan yahay waa adresskii waa ka waxa loo baahan yahay UTRC okay UTRC okay adresska loo baahan yahay waa adreskan aan galno insha Allah adresska aan galno insha Allah adresska loo baahan yahay waa kan soo waxaan dooran doonaa aawe TRC 20 Soomaa TRC 20 iska xaqiijino marka inuu yahay TRC 20 inuu yahay xaqiijino TRC 20 asigana fitirkiisu waaye waa soo laaban doonaa kadib waa gelin doonaa okay markaan geliyo kadib waxaan dhihi doonaa okay waxaan dhihi doonaa don hadda waan soo geliyay soo jidaan waa soo geliyay soo jidaan waa ka soo bixi doonaa insha Allah waan ka soo bixi doonaa insha Allah hadda waa ka soo jidaan meesha waa sameeyay soo hadda meesha waxa soo dhigi doonaa ka soo bixi doonaa kow inta imaan doonaa qaybta waxaan dhihi doonaa withdrawal qaybtan waxaan dhihi doonaa withdrawal soo jidaan withdrawal lacagta waa la baxnay soo jidaan lacagta waa baxday lacagtii hadda waxay tagtay soo jidaan waa kaasa waxay aaday maxaa la meeshii oo maxaa la Meta Wallet ay aaday Meta Wallet meeshan waaye meeshan ay soo gal doontaa insha Allah meeshan markay soo gasho kadib waxaad dhihi doontaa cash out lacagtada la bax okay meeshan ay soo gal doontaa insha Allah waa isla arki doonaa insha Allah markay soo gasho ayaan soo gelin doonaa kadibna waxa u wareejin doonaa Binance haddii aan rabno waxa way EVC waan sii geli karnaa okay haddii aad EVC sii rabto waan kaa caawin doonaa 100% insha Allah okay oo lacagtada waa meesha soo gal hadda meesha soo galno meeshan taabto hadda waxa arkaysaa lacagta inay tahay processing ay ku jirto processing ay qaadanay 24 saac kadib lacagta ku soo gaari doontaa insha Allah iska sug marka aniga muuqaalka boos aan dhigi doonaa si aan hadhow u wareerin oo min bilow ilaa dhamaad u daawato lacagta noola baxaayo ilaa iyo up to EVC xitaa waa geedi karnaa haddii aan doono insha Allah marka muuqaalka boos aan dhigi doonaa okay muuqaalka min bilow ilaa dhamaad dhamayso okay lacagta ugu dambeyn lacagtii waa yani maxay soo gashay Meta Wallet meesha ugu talagalnay soo way soo gashay oo Meta Wallet ka soo gashay haddii ku tuso lacagta waa ay ku jirtaa
waxaan rabaa inaan la baxo $10 insha Allah inaan ku daawo ma rabo. Muuqaalka waxaan rabaa inaan soo koobo keliya. Kadib waxaan taaban doonaa meeshaan ku qorata cash out taabo. Kadibna meeshaan dooro. Kadibna lacagta laga jaran doono video waa intaa. Kadibna waxaan dhihi doonaa submit. ugu dambeyntii wixii weydii koodka waa geliyay gmailka aad usoo diraysa ujeedaan oo koodka xaqiijinta lacagta waaye soo hadda inta waxaa gelin doonaa bin aan samaysan doono waa 6 bin aan samaysan doono insha Allah binkan muhiim ku yahay marka hadda binkii waa sawiisa waa ka soo geliyay soo hadda lacagtii waa ay baxsay ujeedaan binkaas muhiim ku yahay iloobi marka soo hadda waa lacagtii way soo baxday waa isla arki doonaa ilaa min bilow ilaa dhamaad Binance soo waxaan ka soo bixiyay muxuu ahaa gamgala gameki application laha ka soo bixiyay Matola Sugri hadda Matola waa ka soo bixiyay waxaan u soo bixiyay dhankani waxa soo geliyay Binance oo Binance soo diray lacag yani way soo gaartay 24 hours kadib way soo gaartay insha Allah muuqaalka boosa dhigi doona waa isla arki doona soo hadda lacagtii u jirto waa ka 25 waay lacag kale kuma jirto meeshaan soo jida waa kuwaasa lacagtii intii soo gal doonta okay hadda waa ay soo gashay lacagtii waa ka soo gashay lacagtii waa ka saa lacagtii way soo gaartay ugu dambeyn lacagtii way soo gaartay waa kan lacagtii ugu dambeyn way soo gaartay waa ka meesha qoran processing Soomaa waa ka lacagtii way soo gashay $8 ayaa ii soo gashay waa alxamdulillah waa lacagtii waan kala soo baxay gamekii gamegala ahaa soo waa ka lacagtii way soo gaartay successful waxaa heshay $8 heshay soo jidad meeqa noqotay 33 noqotay soo jida lacagtii mise noqotay 33 hada meeqa soo gaartay $8 waxa laga jirtay $2 oo kaliya laga jirtay aad u maasidin muuqaalkaas intaas waay aad u maasidin ugu soo beera subscribe aad u maasidin hadda waxaan rabaa inaan ula baxo qaybta EVC-da insha Allah soo lacagta u jirto waa kaasa $8 waa kaasa lacagta soo gaartay oo $2 laga jirto waay $10 la soo baxay waxaan rabaa lacagta inaan la baxo oo kan soo jidaan waxaan dhihi doonaa take out oo u dhiganta withdrawal oo kale waay soo waxaan taaban doonaa kadib withdrawal aan taaban doonaa ka dooran doonaa insha Allah soo markaan taabto ka bixi doonaa waxaan aad doonaa Salaam Bank yani haduu kugu xiran yahay markaas waxa aan Salaam Bank kula baxaa يعني marka Binance kala soo baxaayo soo waxaan gelin doonaa koodka yar ee la geliyo soo jitaan koodka yar gelin doonaa insha Allah soo sadwaan geliyay soo kadibna waxaan gelin doonaa qaybta lacagtan kula soo bixi lahaa oo soo gaarsiin lahaa qaybta maxaa lahaayay Salaam Bank soo jitaan soo kan waxaan taaban doonaa agent kadibna waxaan taaban doonaa USDT soo waxaan taaban doonaa qaybta selka kadibna waxaan koobi soo dhigi doonaa sida waa kaas koobi waa doornay kadibna waxa laga baahay BBS Smart Chain oo network aan doornay soo waa kan hadda koobi aan ku dhigi doonaa soo waxaan gelin doonaa sidoo kale lacagtan gelin doonaa soo jidaan maxi aan dhigi doonaa soo waxa laga baahay network aan dooran doonaa marka network aan dooran doonaa network hewa waxaan ku soo laaban doonaa network aan fiirno waa BBN Smart Chain oo waa ka soo jidaan ka doornay soo fiirin doonaa meeshan ka raadi min bilow ilaa dhamaad ka raadi soo fiiri ku jira meeshan BNB Smart Chain ku jira meeshan okay kan ugu horeeyo aan doorno marka kan ugu horeeyo doorno okay midka ugu horeeyo waan doortay waxa leeyahay hal senti laga jirnaa soo waxa ku imaanaysa $7.99 soo waxaan dhihi doonaa withdrawal aan dhihi doonaa insha Allah soo arkaya marka withdrawal aan dhihi doonaa soo hadda waxaan dhahay withdrawal soo jidaan waan ku celin doonaa kadib waxa loo baahan yahay xaqiijiso oo confirm adoo confirm dhihin lacagtaada ma bixiso ugu adoona confirm dhihin lacagtaada ma bixiso si lacagtaada u baxdo waxa u baahan tahay inaad dhahdo confirm withdrawal inaad dhahdo hadda waxay weydiinayaa yani inaan furo oo fingerka ku furo si yani lacagta u baxdo sababtoo ah wuxuu xiray suulka muhiim waa marka waa gelin doonaa insha Allah soo hadda waan gelisay jidaan lacagtina waa ay baxday waa ka process aad u